بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمة سقالية تبانات قيب كأه دروستي أن سو ودنو تحنها هيد الدروس الرمضانية ما أنت وحنو هدلينا القناعة قناعة وحالي هذا إن ترى لكل نقطة إلهي وحكوسي قسم قار النلش هذا oo aadan saluugin oo aadan isdhihin aniga si xun baa layla dhaqmay inaadan isdhihin marka qanaacada waxaa lagu fahmaa muqaabilkeeda damac waay qofkii damaciisii meel uu ku dhammaada ma leh marka haddii aad damacaas iska hagtid oo meel aad ku soo ekaysid qanaaca baa la yidhaahdaa qanaacada gaarku ma aha maalka iyo weyntiisa dadka hadda qanaaco la soo hadal qaado sidii zuhdiga ay isticmaalayaan sidaa kaligeed ma aha waa ku jirtaa qanaacada maalka way gashaa bal huwa ahamuhu laakiin asiga kaligiis ma aha qanaacada fi kulli shay bay gashaa ilaahay wax buu ku siiyey adiga shakhsi ahaan haddii aad tahay oo dadkoo dhan aad kaga duwan tahay maalan caqligaada ilaahay caqli gaar ah buu ku siiyey nin fahmo badan inaad tahay nin oo damiin inaad tahay nin wasad inaad tahay si kastood istiraadid masaaxadaas ma dhaafaysid waa dadaali kartaa laakiin waa lagaa sarreeya waan lagaa hooseeya ilaahay wuxuu ku siiyey dhirir ama gaabnaaw ama dhexdhexaad ahaaw ama dheeraaw haddaad istiraadid ilaahay aniga waxa weeyaan dadkii kalena sidaasay u dhaadheer yihiin anigana sidaanan ahay qanaaca la-aan waay midib buu ilaahay ku siiyey ama madoobow ama casaaw ama kalar ahaw waxa weeyaa midibkaas inaad ku qanacdid waay caafimaad iyo cagsigeeda nin acdaadiisa xibnihiisa dhan ay u dhammaystiran yihiin iyo nin xibna il buu la-yahay lug buu la-yahay meel buu la-yahay dheg baa ka go-an waxa weeyaan waa qadar allahu laka waa inaad tiraahdo waxaan way igu dhaceen raalli baan ku ahay bitaqdiir illaahi liannahu hadda wax kuu soo bedelaya ma jirto qofkan ilaahay nin buu ka dhigay kana dumar buu ka dhigay hadduu yiraahdo ilaahay muxuu aniga dumar igaga dhigay waxa weeyaan waa qanaaca la-aan waa ilaahay baa kuu doortay marka haddii aadan ku qancin qaybinta ilaahay uu qaybiye haddaadan ku qancin weligaa waxa cadaab aan dhammaanayn inaad ku jirtaa liannahu maanta dhan baad waxaa tahay ilaahay baad la dooday ani maxaan u madoobaaday ani maxaan u gaabnaaday ani maxaan dumar u noqday ani maxaan faqiir u noqday ani maxaa lugta iga go-an tahay wakayta maanta dhan waxaad ku jirtaa arrin aan dhammaanayn marka dabcan ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa wuxuu noogu soo diray inuu na fahamsiiyo adduunyadan iyo waxa nagala rabo nagu habboon inaan qabano walidaalika qaacida buu na siiyey qaacidadaas haddii aan qaadano sanaciishu murtaaxiin adduunyada dhan waxaan ku noolaanaynaa nolol aad iyo aad u qiimo badan unduruu xadiidka nebiga oo laga wariyey oo muslim fii saxiixi ku wariyey nebigu wuxuu uri unduruu ilaa man duunakum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم يعني الدنيا waxaan ku soo sheego ilaahay gooni ku sii adiga markaad rabtid inaad dad isbarbar dhigtid aad isbarbar dhigtid maalkaada caafimaadkaada quraxdaada dhirirkaada gaabintaada jiradaada caafimaadkaada waxaad u fiirisaa ilaa man huwa duunakum dadka ka hoose u fiiri haddaad adiga maal yar leedahay dadaa kaasii maal yar haddaad qurax daran tahay dad baa kaasii qurax daran haddaad gaaban tahay cid baa kaasii gaaban haddii aad meella dahay dadaa laba meella dadka adiga kaa hooseeya markaasaad ilaahay ku mahadinaysaa laakiin haddaad adiga isku fiiriso cidda kaa korayso oo kaa maal badan kaa caqli badan kaa qurax badan kaa kayta maanta dhan waxa weye waa dhammaan walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum maxaa sababta ay tahay fa inahu ajdaru allaa tasdaruu nicmat allahi calaykum taas waxa weeyaan waxay ku habboon tahay haddaad saa samaysid ay owlada ku leedahay inaad nicmada ilaahay ku sii inaad xaqirin liannahu nicmadii ilaahay ku sii haddii cid kaa sarraysa aad u barbar dhigtid musiibay kula noqonay nicmadii oo dhan laakiin dadkaa hoose haddaad barbar dhigtid waxa waa nicmo la taaban karood ilaahay ku mahadi siday noqonaysaa
marka nicmada ilaahay ku siisa inuu baabi'in adiga daa'iman ha isbarbar dhigin dadka sareeya dadka ka hooseeya isu fiiri qaacida waxa weeyaan nabawiya mubaaraka ee keeni karta qof kasta wadcigiisa inuu ku qanco walidaalika qofka sidiisaba inuu dadka ka hooseeya isugu fiiriyo sunan tirmidhi nin oo taabici ah cabdullaahi la yiraahdo cawn ibn cabdillaahi wuxuu ri waxaan la saaxiibay dadka aqniyada ahoo maal kale buuri waxaan noqday dadka ugu murug badan buuri liannahu markaan arkay dharkooda inay iga fiican tahay barfuunkooda iga fiican yahay daabadooda iga fiican tahay gurigooda iga fiican yahay wuxuu ri hami aan dhammaanaynin yaa igu dhacay buuri wajaalastu lfuqaraa fastaraxtu dadkii fuqarada markaan la saaxiibay oon kuwii ka soo tegay yaa wuxuu ri waan raaxaystay buuri lianna waxaan arkay buuri aniga inaan ka sarreeyo nicmada ilaahay baan dib u akhri buuri hadalkaas waa hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xarfiyan loo dabaqay waaye liannahu dadkii hore isku isbarbardhigay laakiin markuu ka soo tego dadka dambe u yimid waa isbedelay walidaalika ilaahay nabigu wuxuu ri wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya nabi maxamed aa lagu yiri nabi maxamed waxa lagu leeyahay annagana waa nagula leeyahay shakhsiyan naftaada nabi maxamedow xabis kuwa ilaahay galab iyo subax caabudayo oo ilaahay raallinimadiisa raadinaya adiga ishaada ay ka gudbin kuwa kaa sarsareeyo xoolaha iyo waxaan la siiyey adigoo turiidu ziinata alxayaati addunya adoo doonaysa adduunyada ziinadeeda in lagu siiyo xagga ha u iltaagin baa layiri laakiin naftaada soo laab marka qanaacada daday si xun u fahmayaan macnaheedii qanaacadi ma aha inaad adiga lagu leeyahay waxaad tahay iska joog wax horumar ah ha raadinin subxaana allah yacni maalan qofkii wax buu baranayaa qanaacadii dugsiga hoosaan ka baxay iska fadhi dukaan yar aan samaystay 2 dukaan ha samaysanin hal macnaha waxa weeyaan mashruucaad samaysay mid labaad ha samay saas ma aha qanaacada wixii aad qaba kartid qabo wixii horumar oo naftaada ku jirto sameyn kartid sameey laakiin hadba meesha aad joogtid ilaahay ku mahadi ku raali noqo shalay meel baad joogtay maanta waad ka sara martay meel kale aad tagtay ilaahay ku mahadi kuna qanac liannahu hadhihin tan ima kaafiso dadaa iga fiican ilaahay dadkaas muxuu iga fiicnay hadhihin haddii aad hoos u dhacdid hoostaas aad maanta joogtid ku qanac oo ilaahay ku mahadi maahina macnaheedii ma aha kasal meeshaada fariiso wahsi gaal qanaaca saas ma aha qanaacada waxa weeyaan qofka bani aadamka dadka kula mid waxay qabanayaan dhan qabo horumar oo dhan samayso laakiin meesha aad joogtid ilaahay inuu kula doono ay ku qiimo badan tahay sidaa ku qanac taa weeyaan marka qanaacada ulajeedadeedu waa sidaas ma aha in aad tiraadid meeshayda ma dhaafay ilaa waxay noqonaysaa kasal waxaan ognahay saxaabatu rasuulillaahi dad waxaa ku jira aqniya ah oo maal badan leh oo xataa ay ka mid ahay cuthmaan ibni cafaan cabdiraxmaan ibni cawf yacni qanaacada ay qabeen fiiriya dadkaas maalinkii loo baahday xoolahooda dhan bay bixin jireen cuthmaan ibni cafaan waxaa la yidhaahdaa jeesh dhan oo dagaal u socdayuu isaga diyaariyey wuxuu u baahnay oo dhan macnaha waxa weeyaan xoolihiina waad kasbanay xaaladii haddaad xoolihii abubakr xoolihiisa dhan uu bixiyey markuu xoolaha ou lahayno ilaahay buu ku mahadinayay markuu xoolihii ou bixiyeen xaalada dambe u yimidna ilaahay buu ku mahadinayaa maahayna xoolo badnaasha iyo yaraan ma ku laha qanaacada sabab uma ah inaadan ka murugoonin xaalada aad ku sugan tahay ood ilaahay ku mahadisid baa la doonaya walidaalika nabigu wuxuu ri irda bimaa qasama allahu laka takun agna annaas ilaahay wuxuu qayb ahaan kuu siiyo kuu qoonday raalli ku noqo waxaad noqonaysaa dadka ugu qanisan baad noqonaysaa waa xadiidka tirmidi axmed ibnu maajah wari xadiid xasan awa marka qanaacada gaar kuma aha dadka fuqarada hadda haddii qanaaca lasoo hadal qaado dadka aan waxba haysanoo shaqana aan lahayn meel aan waxba ka haysanin waxaad moodaa qanaacadii lasoo qaado war xoolaha hadaadaban haynin iskaga ganac faqrigaada iskaga raali noqo sidaasay u maleeyaan
xaqiiqada jirta waxa weeyaan ninka qaniga ah oo deeqda leh yaa qanaacada uga baahi badan ninka faqiirka ah. waxaan saas u leeyahay waxa weeyaan qanaacadii bedelkeedii waa maxay? midda ka soo horjeeda muqaabilkeeda damac waay. waxaan idin weydiiyey dadka aqniyada oo xoolaha leh iyo dadka fuqarahada yaa damac badan. ninka faqiirka ee maanta haddii 100 shilin uu soo helo maanta farxad buu kala dhacayaa, si tartiib uu hawshiisa u maamulanaya. ninkan xoolaha leh waxaa laga yaabaa maanta 100,000 oo dollar inuu faa'iido oo waxbana uu arkin, ou leeyahay waxay ahayd waxaan wax ka badan in dhaliso, inuu juhuudi u dalo milyuun oo helay milyuun kale oo raadina, mid kale oo helay mid kale. wuxuu ku leeyahay milyuunkan on maanta helay haddaan mid kale oo lagu ilaaliyo aan helin asagana waa idhaafaya. maanta dhan 4 milyan oo helay 8 milyan oo u baahan yahay in lagu ilaaliyo. marka waxaa la ogyahay damaca sidiisaba dadka xoolaha leh yaa uga damac badan. ayib walidaalika waxaa la yidhaahdaa macruuf waaye nin kastaba markuu maalkiisa ziyaada hamigiisa waa ziyaada, murugtiisa. maxaa yeelay maalkan uu hadda haysta maanta inuu ilaaliyo waa murug, midkii lagu ilaali lahaa in la kasbana waa murug, asiga in laga tago ka dhintana waa murug kale. marka waxa weeyaan xayaatuhu kulluhaa fii qalaq. nin baa u imaanay, ninkii salaamu calaykum yimaadaba wuxuu isleeyahay xoolow ku weydiinaya, baynamaa ninkan kaloo faqiirka yafrax idaa laqiya biikhwaanihi. dadkan hadduu la kulmo waa ku farxaya, lianna wax laga raadinaya ma jirto. ninkan wuxuu aaminsanaya ninkii salaamu calaykum yiraahdo xoolo isi inuu leeyahay. marka ilaalo iyo halac iyo murug buu ku nool yahay. walidaalika dadka saalixiinta uma badneen inay maal badna ilaahay ay weydiistaan, maadaama ay qofkii saas tahay oo meel ay ku dhammaata ay jirin. nin dhahay adinka weligiin ma aragteen xoolaan helay, xoolihii aan helay waa igu filan yihiin bas waay. yacni ka soo qaad, nin baa helay 1 milyaar oo dollar buu helay, waa lacagaha maanta loogu xiiso badan yahay. ma isleedihiin markaan waa fariisanayaa waxa weeyaan wuxuu leeyahay intaana igu filan, leanno maxaan geynayaa? waxaan aragnaa dadka caalamka, dadka aqniyada waaweyn marka la isbarbardhigayo, nina waxaa lagu leeyahay 50 milyaar uu leeyahay, koo kale 80 milyaar, kii kale 100 milyaar. marka waxa 20ka ama 100ka ugu sarreysa caalamka markii la yidhaahdo, markaad weydiisid waxa weeyaan ayagii baa ugu halac badan, maalinba meel bay sii gaarayaan. saas marka bani aadamka waxaa la ogaaday meel intuu gaaro uu ku qancayo uu leeyahay wallaahi intaan waxa weeyaan waa igu filan tahay adduunyo aniga iyo mustaqbalkayga iyo wixiin dhalay iyo wixiin awow ahay. marka limaada utcib nafsi, limaada laa uqbil cala allahi, nin dhahaya ma jirto. walidaalika xaqiiqadaas nebigaa noo sheegay, wuxuu uri low kaana libni aadama waadiyaani min dahab labtagaa haalithan walaa yamla'u jawfa bna aadama ila turaab wayatuub allahu calaa man taab. xadiidkan saxiixa ah bal fiiri. nebigu wuxuu uri war baan idiin siinayaa, ninkii 2 waadi oo dahab ah, waadi waxa weeyaan labadan buur dhulka u dhaxeeya waadi la yiraahdo, waadigaas oo dahab ee ninkii helo 2 waadi oo dahab hadduu helo labtagaa haalithan. waa sidii aan kuu sheegay, labadan waadi oo dahabka way wanaagsan yihiin, laakiin mid saddexaad oo lagu ilaaliyo u baahan yahay buu isleeyahay. markaasuu nebigu wuxuu uri walaa yamla'u jawfa bna aadama ila turaab. qofka wax buuxinaya calooshiisoon aan ahayn cara mooye wax kale ma jiraan. marka carada wuxuu uri nawowi wuxuu uri carada waxaa lagala jeedaa an yamuuta wayamtali'a jawfuhu min turaabi qabrihi. markuu dhinto oy caradii oo qabrigiisa ahay caloosha ka gasho oo tixsigii iyo wixii dhammaay ay ku aruuraan, calooshiisa maalinkaas unbay buuxsamayuusan wax kale sii raadinayn. marka yacni maadaama wixii ayba meel ku dhammaataba ay lahayn, ayaa waxaa habboon qofkii inuu ilaahay weydiisto inuu kafaaf uu helo. kafaaf ku filnaasho waay. nebigu waa weydiisto wuxuu uri kama fi lxadiidi saxiixayn allahuma ajcal risqa aali muxamadin quutan. ilaahu risqiga ahalkayga iyo aniga quud ka dhig. quud waxaa la yidhahdaa wixii kuugu filan maalintaada. fii riwaaya kifaafan,
kafaafan ilaahu kafaafan iiga dhig buuri wax igu filan. kafaafka faa'iidadiisa waxa weeyaan adigana uma baahnaynaysa inaad dad kala tuugsatid, adigana wax lagaa soo damca oo murug kugu dhaliyo cibaadada ilaahay kaa mashquuliyana ma haysatid. marka wasad baad ku nooshahay, waa xayaatada ugu wanaagsan, waa nebiga ou doortay. ولذلك في صحيح مسلم نبي وحوري قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فيري وحاويان وحاقوا ليستنكي إلهي دينتي سقاطه إسلاما وهدنا لغو أرزقي رزق كفلا أو إلهي هدنا كو قنعي وحي إلهي سي وحي إلهي إنو كسي واسي إنو إلهي كما يسود كو قنع دينا واسي إني هلع كوسي لسنة ووحكالي. marka kafaafka waxa weeyaan xaajadaada wixii aad ka heli kartid dadna aan ku baahnayn baa la yiraahdaa. marka leano hadaad ka degtid xaajadaada wax ka dana inaad tuugsatid iyo inaad deyn weydiisatid ay kugu qasbaysaa, taasna dhibkeeda ay leedahay. wixii adiga kafaafkadaada ka badanne way ku mashquulina fi akthar alawqaat. dadka ugu mashquul badan oo ugu hami badan waa dadka ugu xoolo badan waa. marka waxaa dheeraade kasratul maal madinatul kibri. maalka hadduu badan yahay kibriga waa kuu dhow yahay hadduusanba kugu dhicin. nasalullah salaama. ninkii iimaan iyo diin leh ayaa ilaahay uu kaga badbaadiya. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala asiga arrintaa nooga hadlay kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagna. fiiri qofkii waxaa la yidhi waa uu iskibrinaya hadduu dareemo ou ismahadiyo inuu xoolo leeyahay, waa kibri buu ku dhici karaa. ilaahay wuxuu biri waaba ku dhacabo. marka waxaanu ognahay min khilaali macrifati alwaaqic ninkii iimaan isku xakameeyo ilaahay wuu ka badbaadinaya. liannahu ninka iimaan markuu leeyahay yatawaadaca lilahi walikhalqihi waa ka badbaadaya. laakiin inta kale sankay taageen mansib iyo maal hadduu qofka jaga meel ka qabto waaba kasii daran tahaybo, iyo maalka labadaaba haddii iskuga kaa daranta waxa way anta calaa xaafati alkhatar. marka sidaa daraaddeed baa nabigu wuxuu yidhi man asbaxa aamina fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quutu yowmihi kaannamaa xizad lahu dunya. xadiidkaa tirmidi u wari. ninkii wuxuu yidhi adduunyada waxayba ku ag tahay ninkii subaxii dhulkiisa aamin u yahay oo cadowku khatarka uusan haynin, jirkiisana caafimaad u qabo nabar hadda ku taagan aysan jirin, maanta wuxuu cunteeyana haysto, waxay la mid tahay adduunyadoo dhan in lagu kulmay buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka insaanka waxa weeyaan iskama warqabo. haddaan dib isu akhrino dad kalaan indhaha u taagaynaa mooye annaga dhan baa wada akhniyaba ah. fulaan iyo fulaan min annaas ma aha, annagana baa wada qaniya. fi istilaaxi saxaabati rasuulillaahi maxay u yaqiineen? nin baa cabdullaahi bni camr bni caas u yimid, markaasuu wuxuu ri alasnaa min fuqaraa'i almuhaajiriin, yacni yaa rajulkan oo saxaabati rasuulillaahi ka mid ah wuxuu ri annaga sow fuqara ma nihin buu ri. markaasuu ninkii wuxuu ku yidhi naag ma leedahay ama xaas ma leedahay habeenkii u hoyatay? markaasuu yidhi haa. guri ma leedahay aada degtid? haa. markaasuu yidhi fa anta min alagniyaa. haddaadba guri aada milkigaada leedahay, xaasna aada leedahay, macnaha waxaad ku masruufato waad haysataa. ninkii xaas markuu leeyahay, marka wuxuu yidhi adiga aqniyaadaad ka mid tahay, madaxaada ka bixi inaad faqiir tahay baa layidhi. marka ninkii haddana wuxuu yidhi waxaa kuu dheeraada yidhi aniga khaadim baan haystaa buu yidhi, yacni gurina waa leeyahay xaasna waa leeyahay, waxaa ii dheeraaday gabar ii shaqaysa gurigana way joogtaa buu yidhi. cabdullaahi ibni camr wuxuu yidhi fa anta min almuluuk. saas haddayba tahay boqortooyo nin boqor ahaa tahay buu yidhi, boqor iska dhaaf wax kale. walidaalika qanaacada waxa weeyaan waa raaxa. kama qaala ashaaciru hiya alqanaacatu falzamha takun malikan low lam takun laka ilaa raaxatu lbaali wandur liman malaka addunya biajmaciha hal raaxa minha bigayri alqudni walkafani buu yidhi. qanaacada wuxuu yidhi laazim boqor baad noqonaysaa, boqor adduunyada haddaad qanaaca leedahay. dadka kaamal badan oo dhan way kaala hooseeyaan, liannahu qanaacadaada melig kaa dhigta. haddaad wax kale ka waysid buu ku yidhi qanaacadii
waxaa kaaga filan raaxatul baalka ay ku siinay wax kale hadaad waysid qanaacada waxay od ka helayso faa'iidada waxa weeyaan qalbigaada ku degan ninkii aragtid ba indhaha ma sii raaca indhahaada qalbigaada dhan baa degan mutmain baa tahay marka waxyaalaha wuxuu oo qanaacada kuga dhalinaya dadka adduunyada wada milkiyay oo intaasoo xoolo jamciye u fiiri markay tagayeen waxaan suuf iyo karfan waxaan ahayn oo adduunyada kala tageen ma aragtay buur hadday saas tahay ma faa'iidatu jamciha suufka waxa weeyaan qofka markuu dhinto meelaha duleelkiisa laga geliya afka laga gelinaa sanka laga gelinaa dhagaha laga gelinaa waxaa leeyahay 2 maalmood kadib xasharaada qabriga uu gali doono marka quraanshada iyo balaayada dhan marka sayna afka iyo sanka ugu gelin yaa la cubcubaya adirta karfantina waaba taqaan labadaas oo ka qaatay hadduu rabo milyaaraad ha haysto intaasuu kala tagay marka taas waxa kugu dhalinaya inaad qanaacadaada ka qaadatido waxba isku sii mashquulin baa lagu leeyahay ولذلك waxaad tiraahdaa اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يعني إلهي كبري إنه حلاشيisa kugu deeqo xalaanta oo xaraamtana kaaga deeqo إلهي fadligiisana dadka ka soo haray inuu ka deeqo إلهي daacadiisana macsiyada inuu kaaga kaafiyo إلهي كبري waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu doortay yaa ka fiican waxa adiga aad isu dooratay walidaalika naftaada u fiiri ilaahay wuxuu kari karay dadkoo dhan inuu aqniya ka dhigo waxna lama ahayn si uu hawada aan ku neefsanayn noo siiyo oo arday iyo samaawaad na siiyay nin kastaba wuxuu ku filan ilaa inuu ka dhinto waa la sii karay laakiin taa waxay dhalinaysaa sunan kowniya waxyaalaha ka soo horjeeda ilaahay wuxuu ri ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير هدي إلهي سبحانه وتعالى dadka uu xoolaha u badi lahay basada rizqa uu waasic u dhigi lahay la baqaw fil ardi ba kibri bay qaadi lahayn kulligood oo dhan laakiin ilaahi rizqigiisa nin kastaba qadarka u munaasibka u soo dejiya li'annahu bi'ibadi khabirun basir ilaahi adoomankiisa asaa yaqaano marka wax cid kasta waxa la siiyay yaa u maslaxa waxaas wax ku duwad hadii la sii lahay waa xumaan lahay dhib baa ku dhici lahay waxaad ogaataa risqigaada orodku ma yimaado asbaabta saxda ee qaado wixii ku dhaafana inayna helayna ogow wixii heshidna kuma dhaafi lahayn qaacidadaasna qaado adoo sababtii wax ku raadi lahayd samaynaysid haddana waxaad ogaataa wax kastoo samaysid wixii lagu qoray unbaa kuu imaanaa fi nihaaya wixii ilaahay kuu qadaray wax ka badan heli maysid taasna waxay kuu keenaysaa inay naftaada qanaaco qaadato tiraahdo haddaan orod badiyo haddaan yareeyabo wixii ilaahay ii qadar waa helaa marka yaanan iswaalin wixii u shaqayso jidkii mar laguma diidano walidaalika xadiid albani uu saxiix yaal wuxuu leeyahay nabiga ina ruuxa alqudsi nafatha fi ruuci annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha fattaqu llaha waajmilu talab naf dhimanaysa ma jirto روح القدس وجبريل وحو إي وحيودي بور قلبي وكسو توري إن أين لمنين النف إلا رزقك إلهي أقري أي لما يسطو ساسا دايتا مركا فاتقوا الله وأجملوا الطلب إلهينا كعبصده وحرامها كمشغولنا وحي لغو قدر وعوني أذيك حرامها كدغانين وأجملوا الطلب سببتنا وحويان سي هدوء إي قناعة أي كجرتو إي عمل شرف لإرادسو wixii ilaahay kuu qadaray inaad wax amal oo radii ku raadisid ay noqonin ama xaraam aad isku mashquulisid taas iska ilaali qanaacada waxa kugu ku saacidaya inaad weliga aad maxaan ku iraadaa aad heshid inaad naftaada ku mashquulisid inaad yowman ma tagi doontid marka yowman ma tagtid waxaan xoolo aad jamcisid macna weyn kulama yeeshanaya markaad ogaatid waa dhimanayay hadaad dhimatid kuwa ma kula galayeen qabriga maya wixii bunuugta arsidateelay wixii sare yaalay wixii xoolo kala dahab yaalay ama guriga ay kala baxayaan qabriga kula gana waa maya taas waxay kugu dhalinaysaa marka inaad qalbigaada meel kale u furtid walidaalika nabigu xawri akthiru min dhikri hadhihi min ladhat waxaad badisaa leeri kuwa macaanta jaro
ninka xoolihiisa markuu ismahadiyo oo xoolaha fiiriyo oo farxad yiraahdo hadduu soo xasuusto inuu dhimanayo macno la yeeshan maayaan walidaalika nabiga wuxuu yiri kun fi dunya kaannaka qariibun aw caabiru sabiil adduunyada markaad joogto waxaad u dhaqantaa nin hadda dhul uusan aqooni yimid ninkaas wax weyn isuguma dhijinaya meeshaas aw caabiru sabiil ama nin socdo oo musaafir ah markuu meel inuu dega uu rabo wax weyn oo sariir fiican iyo meel mukayafaad iyo wax isku mashquulin maayo lianna wuuba ka socdaabo ولذلك ابن عمر وحولي جري إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح نك مؤمن كأساس الربا هداد ما أنت إلهي واكو برجع الحمد لله إن قلبت قاريست ها اسكترين حديرتان اسكددال هداد قلبت قارتين بري إن قاريسا اسكترين نك إساس أفكره هدوي اسمي راعي ماي إلهي وعن كبرينا إنه قناع نقو أرزقه حلالت إلهي حلال شان إلهي نقول ديقه وحرامت نقول ديقه صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.